kulanti wanaagsan daawadayaal iyo saaxiibayaalba meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii toddobaadka iyo Toronto oo idinkaga imanaya stuudiyaha telefishinka caalamiga ee Somali Channel galbeedka magaalada Toronto. daawadayaal iyo saaxiibayaalba annagoo idinku baridinayna hadba xilliga iyo xaaladda aad ku jirtaan. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan. barnaamijka toddobaadka iyo Toronto oo ah barnaamij aanu ku qaadaa dhigna guud ahaanba wararka khuseeya Soomaalida iyo siyaasadda mandaqada geeska Afrika hayaad maanta waxaad ku daawan doontaan haddii Allaha awoodda leh ogolaado barnaamij dheer oo ku wajahan Dr. Cabdiweli Maxamuud Guray oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda dalka Soomaaliya booqashana ku yimid magaalada Toronto waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aan la yeeshay. daawadayaal iyo saaxiibayaalba Cabdiweli Maxamuud Guray ayaa wuxuu ka mid ahaa murashaxiinta xilka madaxweynenimo ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed Puntland sanadkii 2014 wuxuuna horay u ahaan jiray madax ka tirsan ururka qurba joogta Puntland oo saldhigoodu yahay magaalada London ee cariga Ingiriiska. wuxuu bartay cilmiga siyaasadda wuxuuna wax badan ka qoray meelo badan kaga hadlay guud ahaanba siyaasadda mandaqada geeska Afrika gaar ahaan tan Soomaalida. waa siyaasi ay dadka Soomaaliyeed aad u yaqaanaan. magaalada Toronto ee dalka Canada ayuu dhawaan soo gaaray. waxaa loo qabtay 2 xafladood oo ballaaran ay ka soo qayb galeen haldoorka Soomaalida ee ku dhaqan magaalo weyn tan Toronto wuxuuna kaga warbixiyay guud ahaanba xaaladda dalku iminka marayo iyo damaciisa siyaasadeed intaba. stuudiyaha telefishinka caalamiga ee Somali Channel ayaa wuxuu Dr. Cabdiweli Maxamuud Guray ku qaabilay stuudiyaha ku yaala galbeedka magaalada Toronto. mudana ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee Somali Channel barnaamijkiisa toddobaadka iyo Toronto. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan. Cabdullaahi aad iyo aad baan ugu dhawahay aad iyo aadna waa ku salaamaya Maxamed Cabdullaahi. waxa ka mid tahay aqoon-yahanka farakutiriska ee Soomaalidu ay leedahay. waxaad ka mid ahayd murashaxiinta xilka madaxweynenimo ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. waxaad ku sugan tahay magaalada Toronto dalka Canada si aad u weyn ayaa lagugu soo dhaweeyay. ujeedada socdaalkaaga maxay ahayd? marka ugu horeysa waxaan salaamayaa qof ahaan waxaan ku salaamayaa Maxamed Cabdullaahi sida wanaagsan oo aad iigu soo dhaweyseen waraysigiinan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaan kaloo salaamayaa waa bil Ramadaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto oo naga daawanaysa caawa aad bay farxad ii gelisay inaan ila joogo halkan ayagana waa salaamaya. salaan kadibna waxaan leeyahay maanta waxaan filayaa marxaladda Soomaaliya in laga hadlaa waa waajib qof walba Soomaaliyana waa ku waajib aragtidiisa inuu ka dhiibto. marka su'aasha waxaan jeclahay inaad halkaas Maxamed ka sii wadid diyaar baan u ahay wixii aan awoodo oo fikirkayga ku salaysan Soomaaliya inaan ka hadlo. Cabdiweli oo magaalada Toronto dalka Canada oo ay ku nool yihiin dad Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee mandaqada geeska Afrika Soomaalidu ku nooshahay. hal doorkoodii ayaa ku soo shiray oo ku yimid oo aad kala sheekaysay dabcan goobjoogan ka ahayn siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaanba meesha ay iminka wax marayaan. maxaa kaaga baxay dadkan aad la kulantay? in fact waxay ahayd Maxamed imaanshaha Toronto haddii aan su'aashaadii hore ku soo laabto iyo ujeedooyinkan u imid waxay ahayd inaan ogaado qof ahaan ummadda Soomaaliyeed say u dhaqan tahay hal doorkooda oo rag fara badan ah aan ka xusayo muddo badan isu kaya dambeysay sida Saciid Fuude adiga Maxamed Cabdullaahi odayaal fara badan oo waxgarad ah iyo muxuu ahayto Cabdiqani Ismaaciil waad garanaysay intijaahi ku salaysnaa martiqaadkii aan ka helay soo dhaweyntii macnaheeduna wax kala ma ahayna waxa weeye aragtida guud inaan ka arko dadku waxay qabaan community-ga Soomaaliya sidoo u dhisan yahay waxa ay doonayaan ama higsanayaan maadaama Soomaaliya aynu la socono muddo intii ay dagaal ay ku jidhay oo dhabaata ay ka jidhay siyaasadeeduna xoogaa ay ahayd si calan wallayna ay ku socotay
oo ummaddu aad moodo wajahadu inay ka luntay bal waxa ay qabanayaan waxa ay higsanayaan aragtidooda taasay ku salaysteen mana aha meesha kaliya oo aan imid waxaan tagay Seattle waxaan tagay meesha la yiraahdo magaceeda Minneapolis halkaas oo waagi hore aan ku soo dhisnay Puntland Diaspora Forum meelo badan ayaan tagay contact groupkii waa tagay shirkii Denmark oo lagu qabanayay Istanbul waa ka qayb galay meelo badan Sweden waa tagay aad baan u socdaa waxaan daneeyaa ummadda Soomaaliyeed waxa ay ku sugan tahay community walba meel uu joogana aad iyo aad ayaan isku u daneeyaa inaan arko bal waxa ay ku fakarayaan meelaha kala duwan ay ummadda Soomaaliyeed kala joogto awaag Dr. Cabdiweli waxaa tahay nin wax bartay in badan wax ka qoray mandaqada geeska Afrika gaar ahaan siyaasadda qalafsan ee dalka Soomaaliya booqashadaada aad Toronto ku timid waxay ku soo aaday xilli dalka Soomaaliya ay ka imanayaan dhaliilo runtii ay dadka Soomaaliya dhibsanayaan Puntland oo ka caraysan shirkan ka soconaya cadaado iyo gobolada dhexe dawlad goboleedka Jubbaland iyo dawladda federaalka ah oo xiriirkii kala goostay oo meel xun sheekadu ay marayso gobolada dhexe magaalo kamid ah Dhuusamareeb oo wasunna wajameeca ay ku waabarisatay oo ay la wareegtay gabi ahaanba albaabadana u laabtay xafiisyadii dawladda marka fiirisid sawirka guud ee dalka Soomaaliya in badan aad ku soo jirtay siyaasadda aqoon-yahanna aad tahay maxaa ku baxaya waxa baxaya waa dareemi karaa dareen fara badan baa ka jira meelahaas aad tilmaantay oo aad carrabaabtay balse waxaad moodaa haddii aan ku hormaro Jubbaland waxay soo madhay marxalada fara badan dad fara badan baa isu tagay oo Soomaali ah mowqifkooduna wuxuu ku saleysnaa siday wax la garan karo u suubsan lahaayeen wala la socnaa dagaalka waxa ka jiray Soomaaliya intii muddo ka socday tribal conflictiguna waa socday in wax abuurmaan oo ummaddu ay isku meel wax u wado oo maamul la suubsado baa waxa dhacday inay ka gooday dadkii taladu ka gooday ama odayaasha ama waxgaradka ah oo miisaanka ku lahaa meeshaas hadday isu yimaadeen filitaankii laga filayay dawladdu inay gacan siiso waxaa dhacday waxyaabo fara badan oo ku keenay laftigoodii hakad waxa ay qaban lahaayeen waana caddahay arrintaasna waa ka ololeynay haddaanu nahay diasporada ku nool Soomaaliyeed guud ahaan London waa ka hadalnay arrintaas waxaan ugu baaqnay dawladda inay joojiyaan wax walba oo hakin kara nidaamkaas la doonayo dadku inay wax ku noqdaan Soomaaliya haddaan gobol walba is dhisin hadda waa dareemi karnaa waxa imaanaya wax soo baxaya ma jiraan bacda shida wa tacab wala socona waxyaabo fara badan baa dhacay dhiig baa ku daatay aan loo baahnayn unnecessary inuu ku daato taas waxa la filayay dawladdu inay noqoto kuwa mar walba u dooda ama u daneeya mowqifka dadka odayaasha oo go'aanka gaaray balse ma dhicin ka sii soco ilaa Itoobiya la tagay oo gacmo fara badan u soo galeen hadda kulli shay yarjicu ilaa aslihi bacda shida wa tacab waxa dhacday wixii ay ka hadlaayeen qolooyinkii Jubba dhisay inay meeshii ku intahootay waa dareemi karnaa marka marxaladahaas bay soo madhay ka bacdi heshiiskii kadib waxaa muuqata dhaliilo kale oo cusub inay jiraan iyo tid for tad meel ay u socoto aan la aqoon oo waxyeelaysa jiritaanka Jubbaland hadda maamulka Jubbaland waxaan aaminsanahay markaas inay xaq u leeyihiin maadaama tixgelin horena aysan helin haddana aad moodid in ay wax badan tirsanayaan baarlamaankii loo idmaday inay Soomaaliya badbaadiyaan ay mooshin ka keeneen waxa muuqata ama dhacday aan u jeednaa inay go'aan gaareen go'aankaas waxaan aaminsanahay dadku qofba si uu arkaa laakiin xal inuu keeni karaan aaminsanahay sababtu waxa weeye looma baahna wax walba in la carqalateeyo baarlamaanku waxa loo dhisay inuu ummadda Soomaaliya isu keeno Soomaaliya waxa ka jira waa fragile dad loo baahan yahay in la isu keeno dad inay wax dhistaan loo baahan yahay marka meeshii dhisnay inay mooshin ka soo saaraan wax la qaadan kara ma wax loo dul qaadan kara ma waxaan aaminsanahay arrintan inay xal keenayso hadda calaaqaadka ay kala goosteen ama international community involvement ku noqdeen ama ayagu haysin dabuuxsheen waa loo baahan yahay Soomaaliya inay isna buuxiso xaqaa'iq inta loo garnaqin inay ka hadlaan rajadu waa fiican tahay waxaan aaminsanahay markii dib u timaado waxa yimaado solution marka taas ayaan rajaynayaa inuu yimaado dawladuna ay u aragto dadku waxa ay rabaan wax bedeli kara inay soo jirin awaaga Dr. Cabdiweli waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo siyaasad su'aal aan weydiiyo gabi ahaanba siyaasiyiinta Soomaaliyeed
markaad fiiriso dowlad goboleedyahan faraha badan iyo isqaqabsiga iyo mooshiinadan isdaba socda iyo guud ahaanba xaaladda siyaasadeed ee xasilila ee dalka Soomaaliya aqoon-yahano badan oo aan miiskan ku wareystay waxay farta ku fiiqayaan mabaadiida federaalka oo ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed ma u fiicna iyada qaska dhibka wada maxay tahay haddaad tahay siyaasad Soomaaliyeed aragtidaada arrinta ku wajahani maxamed cabdullaahi waa aad su-aal valid u ah waa su-aal loo baahan yahay in laga hadlo la isweydiiyo si ummadda loo dareensiiyo importanciga uu leeyahay federalism Soomaaliya saynu la soconnaba hadda waxaa lagu jira sanadkii 24 dagaal baasan baa Soomaaliya oo qabiiliya ka dhacay dad fara badan baa soo barakacay waji walba ha lahaadeen gobollo walba ha ka soo kaceen ama caasimada ka soo kaceen ama walba ha ka soo kaceen dadku wuxuu door biday meesha ay ku nool yihiin qof walba inuu isku dayo inuu ku noolaado oo nabad ugu noolaado reconciliation la garan karo oo muuqan karo ummadii dhexdeedii lagama suubin oo markii hore kuma heshin hadday qaabkii ku socon lahayd unitary system iyo haddii kaleba laga maarmaan weeye marka maadaama ummadii saas ay dhacday in qof walba uu ku nabadgalo meeshii uu ku dhashay ama uu ku noolaa yaa la door biday in ay federalism ummadda Soomaaliyeed ay ku wada noolaato markaasna dowlad ahaan ayadoo federaal la wada shaqeeyo oo Soomaali aysan kala go'in importanciga ay leedahay taas weeye ummadda ku kala badbaadaysa haddii kale waxa oo imaan kara ma jiro qaabka unitary systemka waa dareemi karnaa Soomaalida wixii ka soo kala gaaray haddeerna dhibaatooyinka taagan hadda aynu ka soo qaadan gobolada dhaxan jeclaan ka jawaab oo ku salaysan gobolada dhexe anu waxaan aaminsanahay maahi ama kuma hadli karo afka Puntland balse waxaan aaminsanahay ra'yiga aan ka qabo Puntland inaan halkaan ka cadeeyo ay ka qabaan ama qof walba oo Soomaaliya oo aragtida Soomaaliya ama siyaasadda Soomaaliya la socda waxa weeye gobolada dhexe qof walba oo Soomaaliya waa jecel yahay inay dhismaan dadka Soomaaliyeed inay wax dhistaan balse waxaan aaminsanahay wax ku salaysan nidaamkii uu ku salaysnaa federalismku laba gobol iyo wixii ka badan laba gobol iyo bar iyo wixii ka badan inay sharuudaha buuxiyaan waa arrin ku cad constitutionka waa arrin loo baahan yahay ummaddu inay indhaha ku hayso waxaa hadda la yaab aniga oo fajicisa igu ah dowladda Puntland waa ka hadashay saddex prime minister waad la socotaan mowqifkii ay ka gaareen arrintaas dee gacantii loo baahnaa inay wax daweyso sideeda waxaa la yidhaahdaa gacan kaliya uma sacabiso labada gacmood baa lagu sacabiya waxaa loo baahnaa arrintaas wax ka qabashadeedu mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dowladda federaalka yay waajib ku tahay inay u hesho xal maadaama heshiisyo fara badan prime ministeradii ay la soo gaareen Puntland oo ku salaysan qaab dhismeedka gobolada dhexe waxaan kaloo aaminsanahay Soomaaliya waynu la soconaa geographically waxay soo martay Soomaaliya historically marka aynu fiirino Soomaalidu waxay lahaan jireen waagii dagaalkii qabaliga ay ku salaysnayd for example goboladaas waxay lahaan jireen leenayo la yiraahdo leenayo Tumazel dadka kala deganaa magacyada I don't want to mention and say aba qabiilka saas aba qabiilka soo waa laga fiican yahay taas waxay u jidhay gaalka ay ilaa 80 kilometers haddaysan ka badnayn waxaa muuqata maanta in saldhig looga dhigayo iyadoo xilligaas ayada aad la socotid gumaysi lagu jiray dadkii Soomaaliyeed waxay u oroleeyeen SYShiya in ummadda Soomaaliyeed isu yimaadaan oo ay ka baxaan dhibaatada ay ku jiraan dee Soomaali marka guri ma kale waa la isu wada guuray markii la isu wada guuray waxaan aaminsanahay intaa kadib dagaalkii hadduu dhacay dadka Soomaaliyeed oo gobolada degan Salab ama gobolka Mudug ha ahaato ama gaalkacyo iyo ka soo qaad meelaha aynu ka hadlayno waxa isu tagay dawladdu ma heshiisiina dadkii bay ahayd dagaalkii markuu dhacay waxa loo baahnaa meeshii inay reconciliation ka wadaan waxa loo baahnaa inaysan wax abuurin waxaad moodaa oo aniga aad iyo aad ii naxdin gelisay markii wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya uu baaqi ku noqday shirka cadaado waa loo baahan yahay inuu baaqi ku noqdo laakiin dareenkii ka soo baxay oo ku salaysnaa ilaa nugaal waa dareemi karnaa dhibaatada uu keeni karo soo marka ma noqonaysa back to square one iyo Tumazel qof walba dee haddii laga baxay qaabkii Soomaalinimo iyo qaabkii xorriyadda loo doonayay iyo qaabkii wada noolaashaha hadda ma aqaan qaabka lagu saleynaya waxay noqon doonaa Tito Tumazel baa lagu saleynaya bas wajh cusub baa lagu saleynaya Puntland waa dhisan tahay xuduud bay leedahay dawladdu waa ka hadashay Puntland aragtaan marka waxaan aaminsanahay in aan la abuurin xasalad jidda waxaan tagay gaalkacyo Maxamed Cabdullaahi xilligii doorashada gaalkacyo historically odayaal magac ku leeyahay jiray
islaan cabdille islaan faarax iyo jaamac seed oo dhinaca kale ah baa ummadda u talin jidho nabad ugu dalin jidhay dadku waa heshiin karaa hadday helaan siyaasad ku wajahan soomaalinimo dadku waa dad wada dhashay waa dad isku guryo ah waa dad soomaali ah laga maarmaan weeye marka wadada saxa in loo tilmaamo laakiin wax khalad ee lagu saleeyo waxay keeni kartaa dhib hor leh bay keeni kartaa taasna anigu waxaan dhalada ka saaraya ma jeclina weligii dowladana ma cambaarayn waan jeclay in Soomaaliya wax u hagaagaan balse hadda habka socda waxaan aaminsanahay inay tahay wax ummadda khaldi kara loomana baahna arrimahaas unnecessary wagaag cabdiweli markaad la hadlaysay waxgaradka Soomaaliyeed ee reer Toronto rabadaan ka hor qada ay ku sameeyeen waxaad ka dhawaajisood ka sheekaysay murashaxnimadaadii ku wajahnayd xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaad carabka ku dhufatay oo sheegtay in aadan manaba raadin xil ku yimid laaluush waxaanu la soconnaa Soomaaliya maxamed cabdullaahi aan ka dhirigsannahay ama dowladda federaalka ha noqoto ama ha noqoto Puntland ama ha noqoto Jubbaland Soomaalida waxay saddex madhaa ama hajida ama haysan jirin waxyaabo fara badan oo sharciga aan waafaqsanayn in doorashada lagu galo in walbana waxaa laga rajaynayaa dee campaignkiisa iyo halkudhigiisa iyo fikirkiisa iyo hadalkiisa inuu ummadda Soomaaliyeed u bandhigo maxay ku salaysan tahay marka aniga tagitaankayga aniga waa duuban tahay recorded bay ku jidhaa waxaan haddaan ilaahu Soomaaliya khayr u ahayn waana Puntland u ahayn وأنا قاعد أستخير إيه هاي إلهه ماشي عن كيمي أنا ولا بدي يقول سؤالي معنى هذا واحد كلام معي واحد يدك الصومالي دب يصومرين دبتها يصومرين وحلبها هي قفلة قيب صراحة أدريمي أنا وحنا سوار كي حلقة سيارة outcome كينا أتكجرين يسيد دور الشرع إن أنا بريرها يقعد يو كهور أنت وحبس صوبه khudbadaydii waxay ku caddahay aan ka jeediyey xilligii doorashada oo ku salaysnayd martiqaadyo fara badanna waa suubiyey waxaana ku salaysnayd anigu inaanan laaluush qaadan laaluushna bixin sababtu haddaan laaluush wax ku noqdo aan baxsho haddee anna laaluush baan wax ku raadinaya dantii ummadda Soomaaliyeed iyo waxaan u socday iyo hal ku dhigaygii meeshay ka baxayaan dareenka Soomaalidu ka qabtana taas inay sensitive tahay waa ogahay sidaas ayaan wax ku waayay fikirkaygii baan cadeeyay anigu waxna bixin mayo haddaanan hal qof helin baan ilaahay waa ii qaaday hal qofna ma helin shilina igama bixin sadaqadu soo meesheed saas ayaa walaal ku dhacday arintaas laakiin Dr. Cabdiweliyow ma aaminsan tahay shakhsi ahaan haddii aad xilliga iyada ahayd laaluush bixin lahayd inaad wuxuun heli lahayd shaki kuma jiro wuxuuna heli lahaa waxay ahaataba mid shaydaan dharbaaxay haddaan isalno anna shaydaan dharbaaxo haddii wax waa heli lahaa taas shaki kuma jiro walaal wahagaag damacaaga siyaasadeed ee xilligan Soomaalidan qasan muxuu yahay maxamed cabdullaahi ow damacayga siyaasadeed anigu waxaan bartayba waa siyaasad bachelorka siyaasad baan ku suubiyey masterka siyaasad baan ku suubiyey hadda PhD aan wadana siyaasad baan maaragtay ku suubiyey waxa ujeedadaydu tahay anigoo qiimeynaya oo waliba ku saleynaya dhaqanka Soomaaliyeed sababta waxa weeye environment-ka lafteedu aqoon waa inaad u leedahay waxa iga go'an inaan siyaasadda ku jiro waxa iga go'an waxa alla wixii aan isku dayi karo Soomaali aan la qaban karo inaan la qabto personally anigu intention-kaygu ma ahan magac kaliya yeelo laakiin rabbina meeshii ku jira soon baa lagu jiraay in dadka dayacan oo dhibaataysan oo Soomaaliya oo meel walba taagan in loo helo siyaasad jahaysa Soomaaliya dad wada dhashay weey aniga haddii aan kaaga warramo qof ahaan ama carruurtaydu meesha ay ka timid Soomaaliya oo dhan bay ka kooban tahay ama aniga ha ahaato ama aabbahay ha ahaato ama adeerkay ha ahaato ilaa Xamar ilaa Boondheere ilaa Hargeysa ilaa Midar bay ka kooban tahay
dadka Soomaaliya dad wada dhashay weeye jase waxay u baahan yihiin wajhada loo furo marin habaabin baa ku jira waxaana dhibaatada jidha ay tahay haddii qofku wuxuu bartay kuma shaqeeya maanta Soomaaliya waxaa dhici karta dadka siyaasadda bartay Soomaaliya inay reer yihiin very rare inay yihiin laakiin ay u muuqato inay gidib hadda wada siyaasiyiin yihiin oo title-kii la wada qaadanayo marka dee waxaanu isnidi war ku dhex dhuunta idinkoo kiinoo saxa wata ku dhex dhuunta bal waxaad qaban kardhaan qabta marka walaal waa ku jiraya siyaasadda taasaan wax u bartay Soomaaliya waxaan ka badbaadin karo intii karaankaya waana aaminsanaa dad fara badan oo Soomaaliya oo aqoon-yahan ah in ay jiraan balse question mark fara badan la isweydiinayo waxa Soomaalida ka khaldan dadkooda aqoon-yahanka waxaan ku gubaabinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadka wax u bartay inay fiiriyaan Soomaaliya meesha ay marayso meelaha hadda aynu ka noolnahay waa la socotaa anigu London baan ku noolahay waxay gaadhay Soomaalidii xataa salaanta inaad dareemaysan isla dhaafayso dadkii waa daalay dadkii waxay waayeen community adag dadkii waxay waayeen Soomaalinimo dadkii waxay waayeen dhaqankooda ay lahaayeen dadkii meel ay isugu yimaadaan bay waayeen dhalinyarada maanta waa la socotaa meel ay isugu yimaadaan oo qurbaha oo Soomaalida ma jiraan dad tala ku keenaya inay tashadaan oo community adag suubiyaan oo caruurta isbaraan oo dhaqankii ilaashaan waxyaabaha faraha badan oo ogow asaasi u weeye siyaasaddu haddaan jirin formidable force dad adag oo ciidan ah oo aan wax jahaynayn oo aan isla socon oo aan muwaafaq lahayn waxaad dareemaysaa inay tahay taasu siyaasad la'aan marka taasaa walaal iga go'an waa ku dheeraaday hadalkii meelo badan baan taabtay maxamed cabdullaahiyow ujeedadeedu aniga taas weeye hadday tahay federaalka hadday tahay Puntland option fara badan baan rabaa inaan maaragtay ku saleeyo siyaasadayda aan hadda jecelahay inaan ka ambaqaado وهذا دكتور عبد الولي محمود قري waxaad ka qayb gashay xilka madaxweynenimo Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa noqday madaxweynihii xilligan oo iminka talada haya dhawaan wuxuu sameeyay isku shaandhayn ku saabsan golaha wasiirada xubno culculus oo golaha wasiirada ayaa ka maqan sida Dr. Cali Xaaji iyo Dr. Eenow iyo dad baa maqan oo la tabaya oo saxaafadda iyo goobaha lagu sheekasta intaba hadal hayntooda aad ku maqlaysaa guud ahaanba dareenkaaga arrinta ku wajahan muxuu yahay بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aaminsanahay annagu markaanu meesha ka soo kacnay anigu qof ahaan waxaan ahaa Cabdiweli talooyin fara badan baan u soo jeedinay haddaanu nahay qolooyinkii madaxweynenimada looga guuleystay fikirkaygina meeshii baan ku cadeeyey waxyaabahan ka soo ka hadalnay markaan meesha ka hadlaynay anigu qof ahaan ka hadlay waxay ahayd in Puntland meel yar tahay in loo baahan yahay dawlad experience-geeda iyo aqoonteeda in la dhiso kooban la socnaa Soomaaliya wasiiradan faraha badan oo la magacaabayo oo dhibteeda ay leeyihiin ama dhaqaalaha ahaato ama mid dheer ha ahaato horta aniga fikirkay iga aadanaa saas ayaan uga dhiibtay ka Cabdiweli ahaana wakaan arkay meesha in la badan yahay inaan anigu laftigaygu markaas anigoo kaashanaya waxaan helay ilaa waxaan ilaa hadaysa jirin waa inaan tashadaa baan horta anigu ka soo kacay Cali Xaaji he was effective wuxuu ahaa nin oday oo aqoon-yahana iyo Eenow labaduba aad baan ugu farxay Cabdiweli inuu consider gareeyo positionka oo consider gareeyo asagana choice-koodii uu ahaa waa ku faraxsanaa inuu maaragtay qaabtaas uu qaatay qaybta libaaxda madaxweynuhu aragtida uu arkay Cali Xaaji iyo Eenow waxaa marka anigu hadalkay ku soo koobaya ayaga isla shaqeynayay musharaxiintiina kamid ahaa hadda waxaan rajaynayaa kolley anigu qof alla qofkii Puntland oo ummadii wax u qabtay wanaag ku wada wadada saxa wax ku wada iyo madaxweynaha iyo tiimkii isla shaqeynayay hadda waxaan u rajaynayaa anigu khayr qof ahaan ma garad aragtida runtaayo ka jidana
كعبد ولا أهان وحوي وحان شعله إن تاس كجابصده إلى أن حقيقة حلو تاس أيان شعله وهجاج ورك وناكسن maalmahan ka imanaya Puntland waxa kamida u gargaaridii dadkii qaxootiga ahaa ee Soomaalida Yemeniinta isugu jiray ee ka imanaya ama ka soo qaxayay dalka Yemen ee dagaalku ka socdo dadka reer Puntland iyo dawlad ahaanba magac weyn bay ku qaateen maxaa dareemaysaa waxaan dareemayaa dadka reer Puntland waxaad moodaa waxaan mar walba farxad geliso aan xasuustaa dhibaatada Soomaaliya ku dhacday guud ahaan saameysay haddii la fiiriyo Puntland waxaa jira waxyaabo fara badan oo dhisan sida mashaayikhda sida dad fara badan oo waxgarada waxaad moodaa dadka marka loo abiil gareeyo oo leeyahay waxa keenana wali in la isu dhagan guri yahay baad moodaa waxyaabaha ku sii haray Puntland baan filayaa wax lagu amaana weeye wax la qarin karana ma ulala weyn bay qaadeen dadkaas waxaana aaminsanahay Yaman waxay ahayd meel Soomaaliya u furan qaxooti fara badan Soomaali fara badan Ethiopian Anfar dad fara badan oo Soomaaliya bay uga tahriibi jiray basalaba Boosaaso ama meel kale oo Soomaaliya kala duwan dadkaas waxay mutaanba dadka reer Yemen Soomaaliya wax badan oo wanaaga bay u muujiyeen ka dawlad ahaan waxaan filayaa Puntland iyo madaxdeedu ka dawlad ahaan ka dad ahaanba inay wax wanaagsan oo lagu faani karo ka qaateen annagu tabarucaad qaar baanu gaarsiinay wixii karaankaya dad isxilqaamay baa jiray walaadadu waa u jeedeen oo waa ku ilmeynayeen waxaan filayaa marka khayr inay helayaan aad baana ugu faraxsanahay mowqifka ay ka qaateen waxaana ku bogaadinaya dhammaan dadka reer Puntland waxaana qabaa wax weyn oo khayr inay helayaan maalin soon baa lagu jiray hada wadaad maahayo ma ducaynayo laakiin waxaan rajaynayaa qofku wanaag markuu suubiyo de Ilaahay baa isna u gargaaray gabagabadii barnaamijkan ku jirnaa waxaa tahay nin wax bartay oo shahaadada PhD-ga cilmigan siyaasadda ka sameynaya in badanna ku noolaa wadamadan reer galbeedka oo horumaray markaad fiirisid guud ahaanba haykalka dawladnimo ee dalka Soomaaliya hadday noqon lahayd dawlad goboleedyada iyo heer qaran intaba dadka Soomaalida qurba joogta ah ee la kulma mas'uuliyiintan reer galbeedka dhaliil fara badan ayay u soo jeediyaan oo waxay aaminsan yihiin haykalkii dawladnimo iyo nidaamkii iyo isla weynida iyo qabka madaxda Soomaalida gabi ahaanba inay meesha ka maqan yihiin maxay tahay fikradda arintaad ka qabtaa ka siyaasadahan waxa way maxamed Cabdullaahi wadan walba it's not only Somalia waxa dhacay wadan walba oo failed state noqda oo dagaal sokeeye baabaasho dhibaatooyinka faraha badan ayaa lagu arkaa sababtoo waxa dhacda institutional capacity building wax walba waa burburaya nidaamkii waa burburaya dawlad military waa burburaya security waa burburaya wala socota international community waa aad iyo aad hadda waxay ugu mashquulsanayeen Soomaalidu sidii ay u badbaadin lahaayeen abuuritaanka aad aragtay fabriga institutional la dhisayo aad moodid shaqadoodii inay san maaragtay ku filayn laftigoodii meelna ay sagaari karin waa dareemi kartaa xamar xaafadaheeda dhibaato fara badan baa ka jira baqdana fara badan baa ka jira lama dhayalsan karo sidaas oo ay tahay marka waxa weeye qofku wax ku noqon kara ahaan weynada aad ka hadlaysid magaca aad ka hadlaysid isla weynada aad ka hadlaysid waxay ku xiran tahay markuu qofku dawlad leeyahay markuu safaarada leeyahay markuu leeyahay institution muxuu ahay ta shaqeynaya markuu ka madax banaan yahay oo aan dawlado shisheeye aysan asagii joogin laakiin markii Ugandis ay joogaan oo ay airportkii joogaan oo security-ga madaxweynaha laftigiisa ay waardiyeynayaan oo ay ra'iisul wasaaraha waardiyeynayaan oo ay waardiyeynayaan madaxda kale waa dareemi kartaa marka miisaanka iyo sharafta Soomaaliya inay meel uga dhacday hatta ma dhici karo wiil adeer u yahay qofku inuu yiraahdo waardiye taas waxa dareemaysaa kalsoonidu meesha ay marayso haba joogto inuu nin kala qanciyo ninka marka asaga meesha madaxda ka ah haddana wiilku adeerka oo uusan ilaalin karin waa dareemi kartaa taas oo dhan markii la isu geeyo corruption dhibaatada taagan oo joogtada
go-aan la-aanta hididiila la-aanta barlamaan adagoo aan shaqaynayn waxaasoo dhan marka laysu geeyo waxay noqonaysaa in lagu applicable ay ku tahay soomaalida isla weynideedii iyo mid deerteedii marka waxay noqonaysaa wax walba aad dabacda inaad qabatid ba irrelevant wax qiima oo qofku u yeelanayo ma jiro aayaddii qur-aanka ayadoo ahayd in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa an yuqayiru maa bianfusihim dee aragtidu taasay ku caddahay marka qofkii waxabaa waxa noqda adduunka meelaha ka soo qabtay masalama dagaalada waa la socotaa rwanda reconciliationkay galeen waad la socotaa south africa intaasoo la haysay reconciliationkay galeen ummaddu waxay u baahan tahay waa arrimaha aan ka hadlayno masalaba hadda gobolada dhexe waxyaaba aan ku leeyahay ignition arma dab ka dhacayo dhibaata ka dhacda waxaa loo baahan yahay wixii la hayay in la nabadeeyo dowlad goboleedyadii dhisan in la nabadeeyo oo iyagii la tabantaabiyo oo la dhiso oo meel lagu ogaadaa loo baahan yahay waxyaabahaas faraha badan marka maxaa kaaga soo baxaya hilaac baa kaaga soo baxaya hilaacaas wuxuu ku tusayaa future muuqda inuusan ku jirin wuxuu ku tusayaa dowlad la-aan wuxuu ku tusayaa muuqaal la-aan halis waxaa ku jira 2016 higsiga halis bay ku jirtaa international community-gu masalan ba hadda aanu dowladda aan ka imid UK role fara badan bay Soomaaliya ka qaadanaysay oo ku salaysan shirar badan inay u qabato inay caawimo fara badan u qabato international community-ga maadaama ay tahay dowlad loo soo socon karo super power ah oo intaasoo Soomaaliya ay ku nool yihiin inay ummadda Soomaaliyeed sidii loo tabantaabin lahaa wax looga dhisi lahaa qaabkaas bay ku mashquulsan tahay laakiin waxaad moodaa baqdin fara badan baa jira oo jugjugu meeshaada joog sababtoo dadku markay wax qabsanayaan baa wax lala qabsan karaa marka walaal arrimahaasoo dhan baa overshadow ka dhigay maaragtay waxyaabaha ku salaysnaa hamigii dadnimadii qofnimadii Soomaaliya وهيك دكتور عبد الولي سؤال ugu dambaysa oo barnaamijkeena wareysiga oo jeclahay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan u qaybsamaha arrimaha Soomaaliya ee qaramada midoobay Nicholas Kay asbuucan wuxuu ka dhawaajiyay in bartamaha bisha July dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka intaba isugu iman doonaan caasimadda Muqdisho kow maxaad filaysaa in laga wada hadlayo labo maxaa kula talin lahayd madaxda Soomaaliyeed halka isugu imanaysa bacdama aad tahay siyaasadda bartay aniga waxaan qabaa u qaybsamuhu arrintan higsiga ku saabsan bay ka wada hadlayaan hadday ka wada hadlaana waxaan filayaa in meel wax u marayaan afka wax baa laga oran karaa laakiin suubinteedu aad bay u adag tahay waxaad moodaa Soomaalidu wax badan bay dhigatay waa arrimihii ku salaysnaa heshiisyo fara badan oo la galay oo aan wax ka qabsoomay jirin allow ay wax yara hore u dhaqaaqdaa wax lagu wada hadlo haddii ay maaragtay sincerely u qabanayaan waxyaabo fara badan oo aragti lagu kala duwan yahay baa jira hadda waxaa ka sharqamisay Jubbaland waxaad ka sharqamisay Puntland oo concern qabta dareenku aad buu u adag yahay outcome-ka waa dhowraynaa laakiin waxaad moodaa qaab marka laga hadlayo higsiga doorashada kole wuxuu ku salaysnaan doonaa dadka yimaada federaalka buu ku salaysnaan doonaa oo federaalka uu qaabkaasaan filaya odayaashu kama marna laftigoodu inkastoo laga yaabo qaab dowla marakan inuu ku yimaado taas ayaan filayaa midda aniga talada aan kula talinaya madaxda Soomaalida waxay u baahan tahay hawshaanu commitment bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in laga run sheego waxa xaqiiqda oo jira ummadda Soomaalida wax ku noqon karo waxay u baahan tahay interestiga in meel la iska dhigo hadii la rabo solution in Soomaaliya la gaaro waxay u baahan tahay in laga intihoobo corruption iyo wax la mid ah waxay u baahan tahay in la isu tuso ama qofku isu arko inuu yahay qof wadaniga oo Soomaaliya si ummadii wax u noqoto ama wadankii wax u noqdo haddii kale waxay noqon doontaa mid gabaabsi u keento ummadda Soomaaliyeed oo markaas lagaba yaabo in international community uu si toos ah u soo qayb galiyaan maadaama Soomaaliya wax walba lagu dayay taasaan filayaa walaal maxamed cabdullaahi aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan kala jecelahay inaan halkaan mar labaad mar saddexaad uga mahad celiyo dhammaan reer Toronto reer Canada sidii wanaagsanayd ay ii soo dhaweeyeen جزاك الله خير أيان لا وأنا ما سنتي
waa hagaag dawadayaal iyo saaxiibayaalba anagu aad idinka mahadcelinayna sida wanaagsan eed ula socotaan barnaamijka toddobaadka iyo Toronto iyo talooyinka aad ka dhiibataan intaba ayaa intaa waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka oo ku saabsanaa waraysi dhinacyo badan taabtay oo stuudiyaha iyaga galbeedka magaalada Toronto kula yeeshay murashax hore dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Cabdiwali Maxamuud Guray oo booqasho ku soo gaaray magaalada Toronto ee dalka Canada wuxuu la kulmay dad fara badan oo Soomaaliya wuxuuna gabi ahaanba ka warbixiyay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo guud ahaanba damaciisa siyaasadeed barnaamijka waxa idin soo saaray anigoo Maxamed Cabdullaahi Xasan waa farsamadii Idris Cabdullaahi bahda Somali Channel ee dalka Canada oo isku duuban ayaa waxaanu idinkaga tagaynaa oo aad nala daawataan khudbadii Dr. Cabdiwali Maxamuud Guray uu u jeediyay haldoorka Soomaalida ee ku qaabilay magaalada Toronto daawasho wanaagsan barnaamijkan barnaamij la mid ah intaanu isugu iman doonana intaas iyo nabadgelyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan marka ugu horeysa jeclahay munaasabadan inaan ku salaamo ka qaybgalayaasha odayaasha waxgaradka dhalinyarada carruurta yaryarka gaar ahaan waxaan jeclahay inaan salaamo odayaasha inay ku fac weyn wax walba waxay leeyihiin darajo cawil xasharo galbeeti hadda waxaan u malaynayaa sanad baaba laga hadlayay cabdullaahi dheer oo baxay iyo saaxiibkay saciid fuuje oo aan filaya raggaas inuu xaalada la wada yahay waxaan kaloo jeclahay inaan si gaar ah ninbaa wuxuu yiri waa aanu meeshaas caana xariglaa SSDF na joogay baa waxa la soo dhaweynaya Cabdullaahi Yuusuf marka luqadda Ingiriiska iyo Soomaaliga iyo dadku waxba isku daraan amxaana meesha waa joogtaa qolo Itoobiyaan in wax la tarjumaa la rabaa marka nin oday ah odayga Cabdullaahi oo ay ku foorado dadku waad aragtay oo tashwiishku meel walba isaga jiray baadama inuu la hadlo ninkii tarjumaanka ahaa Cabdullaahina waa jeclaysan ninkaas inuu hadlo oo wax ka tuuro Soomaalidu ninkaas ka tuuray baad maqlaysaa wax ma garan markaas wuxuu yiri ninkii inta soo booday yiri waxaan leeyahay qoladiina Itoobiyaanka qoladiina Soomaalida Camwell markaas inta la soo fiirshalay warinku muxuu leeyahay si warmays daba marsh dadku Soomaalidu aad bay maaragtay waxa tahay very talented ma jecel inaan hadalka ku dheeraado barnaamijyaan filayaa inay ii qorshaysan yihiin inaan uga hadlo waxyaabaha Soomaaliya ku wajahan balse waxaan mar labaad u mahadcelinayaa dhammaan dadkiina meesha isugu yimid walaaltinimada ehelnimada iyo karaamada iyo sharafta aad istusteen waxaad moodaa Soomaalidu dhaqan baa jiro qofku markuu yimaado oo meel uga yimaado waajibku waxa weeye in la iswaraysto marka anigu dhaqanka soo jeed baan ahay oo dhaqankeena kama fogi anigu waxaan ka imid London idinkuna Canada joogtaan xoogaa baan inay kaga foorarnaa marka wadankii hadii la fiirsho waxyaabaha ka socda London aad baan ula socdaa ururo fara badan baan ku xirnahay oo siyaasadeed ama qolooyin fara badan oo pressure group ah waa ka hadalnaa waxyaabaha Soomaaliya ku saabsan oo ana waxaan ku qasboonahay oo loo baahan yahay in laga hadlo haddii marka aan ka hadlo Soomaaliya waxay la tahay warina kuma seegana current issues ka laga hadlayaa maanta Soomaaliya waxa weeye oo dadku wala hoobayaan waxa hadda ay ka hadlayeen food dafuuche iyo galbeeti iyo Cabdullaahi Dheere markuu leeyahay dagaalkii ma dhamaan in la helo cadaalad in dadkii la mideeyo hadda waxa socoto maalmaha laga hadlaa gobolada la asaasayo oo dhexe waxaad moodaa xasrada badan in laga abuurayo meeshaas xasradaha laga abuurayo sidan ula soconaba dawladdan koor ama transitionalka ahaato ama mid kale ha ahaato dadku waa heshiiyeen oo waa wada fariisteen ayadoon dawladu jirin waxaana ka hadlaayeen mustaqbalkooda iyo wadajirkooda iyo dagaankooda iyo dadnimadooda wax baa lagu abuurayo oo dhibaato ah waa dareemi ka dhaan impactiga ay u yeelan kardo ummadda meesha wada degta waxaan filayaa taas inaad ka dhareegsan tihiin Soomaalidu
mentalitygooda ama caqligoodu waxaad moodaa inay u badan tahay anaa guulaystay hadda nin gurigiisii uu deganaa aan nabad u rabin kuu la deganaa aan nabad u rabin kuu la deganaa uusan wax qaybsi ogolayn dhibaatooyinka faraha badan ummadda waa saameeya Soomaalida wax qabashana waa u baahan yihiin waxaan la socnaa taariikhda Soomaaliya waxaa jiray soonooyin Soomaalidu kala degto waa ka dhagsanaa leena iyo Tomazeli baan maqli jiray waxay ku salaysanayd xilliga isticmaalka leena Tomazeli oo lagu kala qaybinayo ummadda Soomaaliyeed haddii lagu kala qaybiyay waxaa dhacday in Soomaaliya ay isku dayday nationalism inay isku dayday xorriyadii inay hesho inay ka baxday xuduudii ay suubiyeen nimankaas waxaa marka muuqata war Soomaaliya inay maanta ku doodo oo isku qabsato iyadoo saas oo isa soo degtay oo noloshoodii iyo guryahoodii iyo dadkiisu yimaadeen waxaan jirin iyo tii hore in lagu dagaal galo oo mentality oo leeyahay back to square one nin walba meeshuu degi jiray hal digo si Talyaaniga aynu soo qaybina meeshana xorriyad iyo SYL ay maartay waxna gaarsiisay taas waxaan filayaa waa dhibaato jidda dadkaas waxaan jeclaa inaan idin sheego markaan ka degay gaalkacay campaign-kayga waxaan ka bilaabay gaalkacay markaan ka degay waraysi baa la yeeshay xusuus weyn baa waxaa igu dhalisay magaalada waxaa joogi jiray gaalkacay taariikhiyan laba oday oo magac ku leh Islaan Cabdille iyo Jaamac Saad waa labada dhinac oo la leeyahay marna waqooyi marna koonfur la leeyahay waxay gooyeen bay wadankaas ama dadkaas ku socdeen capacity-gooda waa dareemi karaan laba qof oo intay yimid go'aan gaaray oo dadkaas nabad iyo wanaag ku saleeyay maanta waa too late dhibaatooyinka faraha badan marka oo Soomaalida hareeyay cadaalad xumadu meelo badan bay ka jidhaa oo gacan togaaleyn u baahan hadday siyaasadda Soomaaliya sii socoto aan loo helin xal meelo badan waxaan filayaa jugjug meesha joog bay noqonaysaa taas waxaan uga baxayaa arrimihii Soomaaliya oo ku saabsanay dhinacyada Puntland markaan aaday waxa iigu xigtay Garowe Cabdullaahi Dheer aan filayaa inaan maalintii qadadii waa igala soo qayb galay dadku waxay filayeen inaan ka hadlo waxaan isku dayay inaan isugu yeero dadkii dhammaan odayaal hadday tahay hadday waxgarad tahay hadday gabdho tahay hadday mideer tahay all walks of life dadkii ahaa baan isugu yeeray ujeedaduna wax kale ma ahayn dadku waxbay filayeen inaan kala hadlayo waxay filayeen inaan kala hadlayo maadaama meeshii uu ka jiray campaign adag inaan iraado war waxaan doonayaa inaad doorataan mabda'aygu taa waa ka duwanaa wuxuu uga duwanaa ummadda waxa qarabtay Soomaaliya waa corruption waxa dhibaatada keenaya waa corruption waxa dhibaatada keenaya waa nin jeclaysi hadalkii markaan bilaabay dadku waxay u diinayeen inaan leeyahay war waxaan doonayaa inaad doorataan dee meeshii one man one vote kaba jira balse waxaan ka jeclaysay oo aan baarlamaanka ka yidhi maalintii ugu dambeysay anigoo weliba isku dayay in aan qofkii ugu dambeeyey aan noqdo oo aan ka qayb qaato contributionkii loogu talagalay inaan baxsho ujeedadu waxa ay hal mid gaarsiiyo qofka bini aadanka oo laaluush wax kuma noqon karo inta wax lagu siiyo wax kuma noqon karo dad kale wax kuma qaban karo sababta waxa weeye de wixii ka baxay ama wixii lagu siiyay adiga laftigaaga waad u baahan tahay ilaa shaydaan baa kugu shaqaysanaya problemka jira Soomaaliya oo hareeyay taas weeye haddaan soo laabto marka dhinacaan iyo meesha aan ka imid London waana ka dhagsantiin Soomaaliya kaysaska ka socda dawladda federaalka hadaynu ka soo qaadno London markaan anagu joognay waxaad wadaahiyi fara badan baa jiray oo dadka la lahaa waxbay noqonaysaa dawladdii ka siyaasiyan dawladda Ingiriiska oo aanu la noolnahay aad iyo aad bay geed dheer iyo geed gaaban waxay u fuushay sidii ay u tabataaban lahaayeen dawladda federaalka waxaad moodaa wax soo taray inaysan jirin oo dadkii loo nimaday maamulku inaysan noqon kuwa ka soo baxa hawshaas waxaadna moodaa wax fara badan oo biyadiida inay dhacday oo qolooyinkii dawladda Ingiriisku aad la socotaan oo influence-geeda meel walba ay leedahay sharar fara badanna ballan qaaday inay wax ku soo maaragtay xaliyaan arrimaha Soomaaliya waxaad moodaa waji kale inay yeelatay waxaan markaa haddaba jeclahay waxaa fiican pointiga marka aan uga dan lahaa maanta meeshaan imaan sheegay iyo ka hadalkeeda waa hal mid mid kale oo weheliya ma jiro waa iska generalization waxaan hadda ka hadlaynaa anagu diasporada joogta
London kama duwana diasporada joogta banaanka oo kale waa la qaybsan yahay magacii Soomaaliyeed dulku galay platform ay ku wada hadli karaan ma jiro ninkii maanta Soomaaliya oo la xiro ama dhalinyaraha ahaado ama dulman dad isku meel ka soo jeeda oo difaacaya oo wax u qabanaya oo Soomaalinimo wax ugu qabanaya ma jiraan waxa abuurmay wax la yiraahdo community oo basic shaqadiisu bataa inuu xoogaa income helo ama reerkiisa hasiiyo ama gabadhiisa hasiiyo laakiin aan badbaadin karin ku dhalay dhibaatadaas waa mid saameysay ummadda Soomaaliyeed waana la socotaan dadka dhalinyarada jiilalka jira hadday noqoto waxbarasho waddanka gudihiisa waa gabeen dibadiisa waa la socotaan yagleel bay ku jiraan abuuritaan laakiin waxay hayaan ma jiraan London dhalinyaradii faraha badnayd oo ku noolayd waxaan filayaa waxa ku nool 500 oo kun oo Soomaali ah badreemi ka dhaan inta caruur meesha ku jira oo ay dhalaan balse aad waxaad u dareemi karaan gudaheeda markaa tagtaan dad fara badan oo dhalinyaro ah oo ku xiran meeshaas taasna waxay keenaysaa oo ay ka timid wadajir la'aanta dadka Soomaaliya oo meesha jooga haddaba waxa hadalkaygu yahay aniga ujeedadu maanta ay waxaa jiray ninba mahmaah yar baan ku daraya walaal hadalkaani ku dheereeyo ay kuleyl tahay waxa la yiri nin wadaada wuxuu lahaa beer yar dadku waxay yiraahdaan asxaabada hadallo badan baa la soo rifeer gareeya marka beertii yarta ahayd waana aad buuna maaragtay waa dadka la lahaa ilbu leeyo wax uu isha la helo wadadu cabaya ninkii bahal dabagaala baa beertii ku soo kacay ilaahay buu duceeyay wuxuu warleeyahay xaqa beertayda bahalkaas dabagaalaha ka go dabagaalihii bahal dafa la yiraahdaa ku soo booday markuu arkay inta ka naxay rabbiyow ka go buu yiri dhibta maaragta miskiinkaas geed bay fuushay habaarkii ayadoo geedku waa ku soo dhacdo caloosha baa show qori ka muday quraanca ku soo yaacday quraanchadii buu ishiray habaar hadda habaar miyaa qabanaya 100 milyan oo quraancha hal qof baa lala helaa maaragtay habaar marka waxaan ka wadaa taas dadku wada jirku wax ku noqon karaa waxaan aaminsanahay qofku wuxuu Soomaalinimo ku waayay inuusan wax ku noqonayn waxaan aaminsanahay oo aan aaminsanahay haddaynu Soomaali nahay dadkeena qurbaha jooga in Allah xisaabtataan dadka yiri waxaanu wakiil ka nahay community-yada sababtu waxa weeye haddaad daafacdaan niman ilmihiina wax u qabanayn qabiil ku daafacdaan aqoon la'aan ku daafacdaan wax idinka dib inii celinaya weey waxaan ku soo gabagabaynaya ma jecli inaan xoogaa jeclahay maanta imaanshaha aan halkaan imid ama dadka aan ku arkayo dadka Soomaalida inay familiar hortooda noqdaan waxa dadku wax ku qabsan karaan oo ku noqon karaan no matter what Muuse Axmed Faarax Cabdi Cali wadadku inay isu yimaadaan halka ka develop gareeyaan siyaasad iyo intijaah ummadda ay Soomaaliyeed ay wax ugu qaban karaan inaan ku dheereeyo ma jecel hadalka balse waxaan jeclahay laba hadal inaan ku soo koobo mid waxa weeye rag dadaal baa la faray wasiir cusub hadda inoo muuqdo horta waa u tahriyadeynayaa wasiirka Cabdinaasir aad iyo aad baan kugu tahriyadeynayaa waxaan kaloo jeclahay inaan u tahriyadeeyo oo aan si aan kala har ahayn Cabdiqani Ismaaciil hadda dadka waa la magacaabayo haddii kale waxaad noqonaysaa Soomaalidu magacayaa la isugu yeeri jiray moogta marka rabba ii badiyay baa la yiraahdaa Cabdiqani Ismaaciil roodo iyo muxuu ahay ta Azhar Faadumo wiilal iyo gabdho adeero iyo abtiyaal dhammaantiin aad iyo aad ayaan idin ku mahad celinayaa jazaakallahu khayran aad iyo aad baan inuu ku mahad celinayaa marnaba